Dr. Cali Khaliif Galeed ayaa waxa uu saluug ka muujiyay qaabka ay xukuumadda Soomaaliland ay u qaybiso xilalka kala duwan ee xukuumadda waxaana uu hoosta ka xariiqay inay Soomaaliland ay ka jirto nidaamka qabyaaladu. Geesta kale Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa waxa uu xukuumadii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye uu ku dhaliilay inay wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ku fashilmeen waxayna hadaladaasi ka sheegeen barnaamijyadooda ay habeenkii xalay ku qabteen magaalada Berbera kaasoo qayb ka ah barnaamijyo ay muddooyinkii u dambeeyay ku qabanayeen gobolada Soomaaliland labadan professor Soomaali waxay hadii qabyaalad lagu sargooyay oo la yiraahdo 4.5 anigu isaaq ma yahay idinkuna dhul bahante ama warsangeli ma tiidin haday bahashu 4.5 tahay war aqli aynu kaga gudbi karno 4.5 oo danaheena inako u wada joogna ka tashan karno oo waxa aynu ka doodaynaa wax guntiga la gashanaya maahe waa wax miiska la saaray oo la isku qancinayo waxaan rabaa annaka tabliiq siyaasiga iyo minaan la dhundhumanayna ma war wanaag baan rabnaa war doorashooyin baa soo socda war saddex xisbi oo sumadda geelina ku wada taala yaa meesha yaala war saddexda xisbi intay bahasha iyagu guddidooda iyo madaxdooda iyo dhowr qof oo waligood soo murmay hadii loo daayo war dhan walba seeg baa inagu dhacaya war khaatumaan nahay war daada anoo jooga waxa igu kalifay jabhad inaan noqdo oo naftayda u huro waxay ahayd ummadda halkaa ku nool Somaliland iyo Puntland iyo xamar midkoodna nolol ma hayo warwaayada cidina daada ma ogola anigu soo iska barakaystay wax mansabaan Somaliland ka rabaa ma jiro wax mansabaan meel kala oo siyaasadeed aan ka rabaa ma jirto laakiin dan baan daba jooga dantaana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Somaliland hadday tiraahdo ciidamo aan leeyahay yaan wax ku xukumaya marbay suurta gashay boorga wixii ka dhacay intiina waxaan malaynayaa taariikhda inta la soo qoray iskuulada aad ku barateena wallahi in badan dib loogu noqdaana waa jirtaa in badan oo la isla ogol yahayna waa jirtaa mandheelaydan kama waramin wixii boorma ka dhacay iyo wixii ilaa law yacda ka dhacay war wadankan haddaan xisaabtan laga ogolayn war waxba inoo socon maayaan war dimuqraadiyaynu meel walba la ordaynaa leeyahay dimuqraadiyaan nahay oo aniga jeegaanta yaa iga hor jooga markaa inaanu annaguna jeegaan noqono oo weliba aftirsiino hore war burco iyo hargeysa iyo berbera igama Somaliland sana haddii aqoonsigii uu noqday fallaada wadnahay nagaga taala haduu noqdo sideeba loo keenaa wax ka duwan 28 sanadood ee u dambeeyay anigu waxaan qabaa maanta dhaweyn waa dhageysanaysaa ma filayaa doodii hargeysa waxaan qabaa in muddo aan ku dooday Somaliland ma bay bilaabin si daba uma ay bilaabin inay raadiso adduunyadu inay garato ma baynaan waa sheekay yar hargeysa iyo meelaha taaltaaloo lagu sheekaysto laakiin wax dhab ah ma inaan sameey waana 28 sanadood marka halka khasaaro weyn baa yahay anigu marka waxaan qabaa haday 28 sanadood wixii aynu ku hamiyeenay waxaan islaam waxba maxaan isku daydeen aanay faa'iido keenin wax allaale wadan qoro maanta ina aqoonsan saaxiibanahay ma jiro sidii xirsi uu sheegay habeenkii dhow wala runtii not one single country 28 sanadood waqtiga in la isweydiiyo Soomaa oo postmortem inta la sameeyo la isku yimaado la yiraahdo dawladda dadka ay dhaw waa maxay 28 sanadood waxba uga keenay anigu waxaan qabaa marka waxa weeye arrintaas mid aad iyo aad u culus waxaan qabaa marka ugu horeysa 15 maybe even imka 20 inay ku dhowdahay xafiis oo Somaliland ay leedahay ayaa meelo badan oo adduunyada laga furay taas no that's wrong no safarada malihi safiirna malihi marka xitaa waxay naga lumay in wixii kelmadda la isticmaalaya inay noqoto deetu dhaba hadii kala de riwaayad baa isku dhigayna waa inaka riwaayad isku dhigayna safaarad waxa la yiraahaa iyo safiir marka calankii wadanka kale say
marka safaaradda waddanka kale ay hargeysa sidaa u socoto ee safaaradda bihaysa u tahay calankii Somaliland iyo halka uu ka taagan yahay dee ma jirto taas marka xitaa kelmadaha aynu isticmaalayno in edeb yeeshaan waa important cabdirasaaq qaasim jaamac telefishinka Somali News magaalada Berbera.